marka ducana ta ugu fadli badan buu nabigu عليه الصلاة والسلام waa inaad tirahdid الحمد لله رب العالمين maanta inaka su'aasheena badan baahideena badan waxa dadku inta badan ay eegaan inta nicmada ka maqan bay eegaan inta nicmada ay haystaan ma eegaan nicmada araga nicmada maqalka nicmada caafimaadka nicmada insaaniyada nicmada arsaaqada wa in ta'uddu ni'mata allahi la tuhsuha hadii nicamta ilaahay nagu galadeysay hadaad tirisaan ba ilaahay leema soo koobi karaysaan ilaahay bay noo nicmeeyay marka ducana ta ugu fadli badan buu nabigu waa maxay waa inaad tiraadid mar walba alxamdulillaah ala nicmat aliimaan walislaam waliba nicmada ugu weyn ilaahay jalla wa ala uu nasiyay waa nicmada islaamnimada weeyaan dad badan oo maanta muslimiina nicmada ma qadariyaan nicmat alislaam haddaan garan lahayn oo hoos u eegin lahayn iyada nicmo inoogu filan مثقال ذرة من إيمان قفك قلبك مثقال ذرة من إيمان وخيرا أما إيمان أو قلبك سكجري الدنيا كتجب النبي عليه الصلاة والسلام إلى هاي جنة وحو كسيا جغل لك الدنيا توبن كيل لك با جنة إلى هاي كسيا موسى عليه السلام إلى هاي وكي بريا يري كلمة كوكو بريا يسي مركاسا إلى هاي كو يا موسى وحاتر هذا لا إله إلا الله ده markaasuu yaa rabbi adoomahaga wanaagsan kalmadan way yidhaahdaane tuga aniga ii gaaraysiyo kugu baryo markaasaa ilaahay yidhi yaa muusa toddobada ciriga toddobada dhul haddii la qaado miisaanka kafad la saaro kalmadana kafada kala la saaro kalmadaaba ka culus baa ilaahay ku yidhi xadiis saxiixa nabigu calayhi salaatu wasalaam waa kii lahaa maalinka qiyaamaha nin ummadayda ka mida ayaa ilaahay banka qiyaama kala soo dhex bixi doona waa laga soo dhex soocan doonaa markaasaa la hordhigi doonaa 99 diiwaan oo midkii la furo buu nabigu uu leeyahay ilka aragtay oo dunuub iyo macaasi ay ku wada qoran tahay markaasuu adoonku yaabaya markaasaa ilaahay ku oran doonaa malaa'igtaydii amalka soo qoraysa may kugu xadgudubtay markaasuu leeyahay may igumay xadgudbina waxa meesha ku qoran oo dhan aniga geystay afalaka udhrun hadana wax udurdaar ma sheeganaysa markaasuu leeyahay maya bala inna laka indana hasanatan la dhulma alayka al-yawma uhdhur waznaka agtayada hal xasana ayaad soo dhigatay oo ku taale halkan meeshan cidna lagu ma dulmiyo waa maxkamad weeyaan ilaaha caadilka ayaa ka taliya ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل آتينا بها وكفى بنا حاسبين مثقال ذرة إلا إيقو خيرا أما أو شر أنك مالين تابنك قيامة إسقو وتتقى لقد ظلم ما يبا إلهي لقو حد قد بماي وحولتك يبا لقى أبا المرين دونا وأي إله عادلة مالين تاكتلنا يا محكمة داس مد لالوش قادنا يا mid laaluush la siinaya mid shafaacad ma aragtaan ilaahay noo ergey marka la oranaya meeshu ma taagna waxay taagan tahay waa maxkamad ilaaha caadilka ayaa kala saaraya khalqigiisa nin walba amalkiisa marka hore lagu dhaqaajinaya dadna ilaahay tabaaraka wa taala shafaacada anbiya malaa'ikta iyo shafaacada anbiyada iyo shafaacada culimada kadib ayaa la bilaabi doona markaas ilaahay oran doona agtayada hal xasana ayaad soo dhigato ku taale orado halka amalka lagu miisaama tag baa lagu oran doona waxa la soo saaray buu nabigu calayhi salaatu wasalaam bitaqad warqad yar oo ay ku qoran tahay shahaadati an la ilaha illa allah shahaadati an la ilaha illa allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu dadna markaas la qaadi markaas uu leeyahay maxay intee kaga dhacaysa kelmadan warqadan yari 99 register oo midkii la furaba uu leeyahay ilka aragtay maxay ka gaadhaysa markaas la oranayna uhdhur waznaka halka amalka lagu miisaam adigu iska tag markaas la keeni doona 99 kii register xagan ayaa la saari doona kelmadii tawxiidka qalbigiisa ku jirto la yimidayna kafada kala loo saari buu nabigu yiri fala yadkhulu ma'a ismi allah shay ilaahay magaciisa wax ka cuslaanaya ma jirto buu rasuulku yiri كلمة طيبة تد مسلمين وشهادنيا ولبا دينتي دنينيا ومساجدي عمريا ودينتي برانيا ودينتي دغيسنيا ودينتي كهلايا ايا الهي نغا دغاي كم نعمه قدر كيغا ما بغران كرنا ما انت انكو
dadka ahla dunyuhu adduunyadooda qadarkeyga way gartaan magaaladan aad ku nooshaan lacag suuqa lama maro waa sugna dahabkana warkiisaba iska daaba sida dahabka iyo lacagta qiimaheega loo gartay ee loo ilaalinayo ayaa loo baahan yahay diinta islaamka in qiimaheega qadarkeyga intoo la garto in loo ilaaliyo ma qadarullaha xaqa qadrihi ilaahay cadamadiisii macrifadiisii cibaadadiisii uu xaqay nooga lahaa umaanu caabudin umaanu garan markaasaa ilaahay ludfigiisa iyo karamkiisa iyo dulqaadkiisa ilaahay nagula tacaamulaya waa ilaa acmaal aan mutaysanay inaan arlada dusheeda aan ku joogno ma hayna maanta laakiin raxmadiisaan ku joognaa dulqaadkiisaan ku joognaa ludfigiisa ayaan ku joognaa asturkiisa ayaan ku joognaa yaa man adhara aljamiil wasatara calaya alqabiix waa munaajaadkii nabigeena moxamed calayhi salaatu wasalaam rabbigii markuu la munaajoonay uu ku ducaysan jiray yaa man adhara aljamiil wasatara alqabiix ilaaha quruxdaydii sifaadkaygi wan wanaagsanaa intii wanaagsanayd ii muujiyey ee intii ceebtayda igu ogaana ii qariyayow allahaasaa mahadla buu nabigeenu ku ducaysanaya habeenka markuu ilaahay la munaajoonayo nicmadda inta aan haysanaa la rabaa inaan eegno inta naga maqan ha eegin inta kaa maqan ha eegin dadka maanta muslimiintu intooda badan waxay eegaan nicmadda inta ka maqan bay eegaan يؤتى يوم القيامة يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيسبق صبغة في النار ثم يقال هل رأيت خيرا قط هل مر بك نعيم قط dadkii adduunyada soo maray min maalinkii adduunyada la abuuray ilaa saacadda qiyaamadu ay dhacayso kii ugu nicmo badnaa ee ugu barwaaqo badnaa ayaa banka qiyaamo la keeni buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam laakiin isagoo ahlu naar ayaa la keeni doonaa oo naar loo sii wado hal mar keliya intoo la soo qaado ayaa naarta la gelin doonaa naartaa la gelin waa laga soo celin doonaa markaasaa la weydiin doonaa oo la odhan doonaa weligaa adduunyada intaad ku nooleed barwaaqo iyo nicmadima ku soo martay intuu ilaahay ku dhaarta buu leeyahay weligay nicmadiiyo barwaaqo haba yaraatay anumaba arag buu leeyahay waa keena dadkii adduunyada soo maray waa kii ugu nicmo badnaa ee ugu barwaaqo badnaa hal mar oo jahannamo la geliyo laga soo celiyey ayuu nicmadii oo dhan ku halmaamay mar keliya nicmadda adduunyadan dul taalla ee dadku maanta nicmad ay moodayaan ee markii nicmad la hadal qaadaba kombyutarkeenna ay ka soo baxayso adduunyadu maanta nicmad markaan hadal qaadno waxa maskaxdeenna markaaba kusoo degdegaysa aqal weyn iyo gaadhi weyn iyo lacag weyn iyo darajad weyn iyo reer weyn iyo islaam weyn baa qalbigeena kusoo degdegaysa nicma salaada jamacaad ku tukatay baa nicmada hadalka ilaahay le noo sakhiray ku hadlayna baa nicmada maqalkaagii aad u sakhirtay ilaahay diintiisa inaad maqasho baa nicmada sujuudaad sujuudaysid baa nicmada carabkaad ilaahay kaga shukrinaysid baa nicmada gacantaadaas aad isticmaalaysid baa nicmada nabiyullaahi ciisa calayhi salaam ayaa arkay nin labadaa gacmood halkaa ku go-an labada lugoodna halkaa ku go-an indhalo oo weliba aan waxbana arkaynin barasloo jirhkiisu cad yahay oo leh ilaaha waxaan ku mahadiyaa balaayo badan oo addoomihiisa ku dhacday ilaaha iga ilaaliyey baan ku mahadiyaa buu ku ducaysanayaa markaasuu nebi ciise calayhi salaam ku yidhi balaayada adiga kaa maqaneed ka alla baryaysaa maxay tahay adigan gacmihiina waad laadahay lugihii waad laadahay araggii waad laadahay midabkaagii waa doorsoonyaho waa baras baad leedahay waa maxay nicmadda adiga dhibaatada dadka kale ku dhacday ee balaayada ummadda kale lagu riday ee adiga ilaahay kaa ilaaliyey waa balaayadee buu aad sheegaysid wuxuu yidhi aniga ilaahay jala wacala wuxuu i siiyey qalban shaakiran wa lisaanan daakiran qalbi waxa ilaahay igu deeqay mar walba ilaahay aan ku xasuusto ku haya cadamadiisa iyo maxabadiisa iyo jacayladiisa iyo carab waxa ilaahay i siiyey mar walba aan ku haya dikrigiisa iyo taacadiisa miyaynan balaayo ahayn buu yidhi ilaahayna laga magan galo dadka ilaahay quluubtii intuu siiyey qalbigoogiina ilaahay ku garan la carabkiina ilaahay uu siiyey carabkoogiina ilaahay ku xusi laha
inagu maanta nicmad markaan maqallo waxa maskaxdeena markaaba ku soo degdegaysa adduunyada dhalaalkeega dadkii adduunyada soo maray kii ugu nicmad badnaa ee ugu barwaaqo badnaa laakiin maxay ugu taallaa ayaan darro wuxuu ka baxay adduunyada isagoon ilaahay iyo rasuulkiisa garanayn laa yagurannaka taqallubu aladiina kafaruu fi lbilaad mataacun qaliil uma ma'waahum jahannam wabi'sa almihaad ilaahay baa qur-aanka inoogu sheegay weligoodba gaaladan arladan ay kolba dhinac u gagadoomayaan ee kolba waxay technology ay soo saarayaan ha ku degin baa nebiga lagu yidhi ha ku degmin waxaan doonaynaa baa ilaahay yidhi waxaan darhum yaakuluu wayatamatacuu wayulhihim alamalu fasawfa yaclamuun baa ilaahay yidhi ha cunaan ha ciyaaraan ha iska tuntaane iska dhaaf baa nebiga lagu yidhi gadaal dambayse ogaan doonaana baa ilaahay yidhi mataacun qaliil in yar weeyaan raaxada adduunyadu hadday haystaanna in yar bay haystaan uma ma'waahum jahannam halkay ku hooyanayaani waa jahannam baa ilaahay yidhi walciyaadu billaah kii adduunyada ugu barwaaqo badan buu ahaa ugu nicmo badan laakiin adduunyada waxa uu ka baxay isagoon ilaahay rasuulkiisa aanan garanayn isagoon allihii abuuray xidhiidh la yeelan daarta loogu talagalay loo noqonayana aanan u sahay qaadan nebigii la soo diray calayhi salaatu wasalaam ee bashariyadda caalamkao dhan la yidhi way indhalaayihiin waxba ma arkayaan adigaa indhaqabee bini aadanka soo badbaadi la yidhina noloshiisii iyo dhaqankiisii buu u arkay dib u socodnimo afaman yamshi mukiban calaa wajhihi ahadaa aman yamshi sawiyan calaa siraatin mustaqiim baa ilaahay yidhi ilaahay rasuulkiisa ninka raaca waa ninka caadiga labada lugood ee caadiga ku socda weeyaan ilaahay rasuulkiisa ninka yidhi ma raacayo diintay la yimaadeen iyo shareecadoodana qaadan maayo amarka ilaahay qaadan maayo nebi maxamed dariiqadiisii mari maayo dhaqankii nebi maxamedna dhaqan ka dhigan maayo ninka yidhi waa nin yidhi madaxaan ku soconayaa madax ku socda weligii meel ma gaadho adduunyada dadka soo maray buu ahaa kii ugu nicmo badan ee ugu barwaaqo badnaa hal mar keliyo naarta la geliyey buu nicmadda adduunyado dhan ku halmaamay wayutaa biashaddi nnaasi buusan fi dunya min ahli ljanna wayutaa biashaddi nnaasi buusan fi dunya min ahli ljanna fayusbaqu sabqatan fi ljanna fayuqaalu laka hal mara bika shiddatun qad hal mara bika bu'sun qad فيقول لا والله يا ربي أو كما قال عليه الصلاة والسلام حديث معني سوها ذاتك الدنيا الصومري كي أقول لبعض هذا بدنا أقول مشاكل كبدنا كاسا بنك قيام الله كان ابو نبي وريسوغو لكن جنة الله سيوض أهل الجنة هل مركلية جنة الله تسن أما اللي قلين يسبق والله قلين مركلية الله قصوا قبن markaasaa la odhan doona weligaa ya allaha intaad adduunyada ku noolayd wax dhibaato ah wax mashaakil ah wax masiibo ah mala kulantay intuu ilaahay ku dhaarta buu odhanayaa may weligay dhibaato maba arag buu leeyahay waana kee waa dadkii adduunyada soo maray kii ugu dhibaatada badnaa kay xaggiisa faaqada iyo dhibta iyo mashaakilku iyo faqrigu uu ku badnaa weeyaan ee dadka ugu nolol liitay xagga nolosha maadiga marka laga hadlo daahirka sidaasuu ka ahaa laakiin gudaha uu ka raaxaysanayay daahirka la noloshu midna waa mid daahirka ku tacalluqda maadada midna waa mid gudaha gaalada ilaahay markuu nebigu yidhi addunya sijnu lmuumin wa jannatu lkaafir marka uu nebigu yidhi gaaladu janno kuma jiraan jannada uu nebigu sheegay waxa weeyaan shahawaadkoogii adduunyada inay ku gudanayaan weeyaan waxba ka xaaraan maaha iyaga waxay rabaan bay cunayaan waxay rabaan bay cabbayaan siday rabaan bay u soconayaan waxay rabaan bay daawanayaan meeshay rabaan bay marayaan waxay rabaan bay fuulayaan waxay rabaan bay ku hadlayaan waayo iyaka maaragtaan xalaal iyo xaaraantu qofka muslimka loo soo dejiyey shareecadaas qofku markuu ashahaato ee uu islaamnimada soo galo ayay xalaashii xaaraantu qabanaysaa marba hadduu gaal yahay uu ilaahay garanayn uu rasuulkiisii garanayn
وشريعة دين تآمن سنين شهوات سي الدنيا نكو جدنا يا يسوع مركا جنة سي وهالكن مالين تو دنتنا جنة سي وكب حياة جهنم الله قاضي يا يسوع مركا ظاهر كو كرر حيسنا يا ظاهر كا أقل وناكسن قاري وناكسن قر قبر قروح بدن در قروح بدن ودن قروح بدن نولل ظاهر كا قروح بدن لكن قدها ويكويا أما مسلم كمية مسلم كو ظاهر كهدي حتى ونولشي سكتو سنين ودلقي صبر برسيه هاي وأباره كوب بديهين وعلاده كوب بدنتهاي وفقره كوب بديهاي وبكتانته كوب بدنتهاي والرفات كوب بديهينا قفوا مسلم كو قدوه كراحي سنة يا تلقصان إني شيء نمن عدانا أضل حيستيالا حب بيمريان مال حبه حبتي waxay ugu tageen nin muslim oo dhalinyaro ah oo xabta iska jiifa badda dhinaceega iska jiifa way kiciyeen waxay ku yiraahdeen meeshan maxaa ku dhigay wuxuu yiri waxaan ahay kalluumaysto baddan ka kalluumaysanaya oo khaydkii baa badda iigu jiro halkana waan ku xidha lugtayda marka kalluunku marka uu galo khaydkaasi dadna waan lugtayda dhaqaaqi waan kici waan soo saaran waan iska karsadaa dhowr xabadoodna waan qaataa reerkaygaan u geeyaa buu ka yidhi way ka naxeen markaas lacag bay iska soo ururiyeen lacagtii bay u dhiibeen lacag aad u fara badan wuxuu yidhi maxaan ka dhigaa waa qiso mathal yani waxay ku yidhahdeen lacagtan waxaad ku iibsataa shabag fahmaysaan baan u malayn shabagaabaad badweynta ku tuuran halkaad 2 iyo 3 maalintii aad qabanayseen 20 baad qaban markaasuu yidhi kadibna waxay yidhahdeen in muddo sidaa u shaqee lacagta yar ururso doon yar baad marka dambe iibsan doontaa engine yar baad motor yar bay leedahay badweyntaad ku dhaadhici doontaa halka maalintii 20 aad soo qabanaysay 100 kalluun baad soo qaban ilaa 200 xabadood markaasuu ku yidhi kadibna markaasay yidhahdeen in muddo sidaa u shaqee magaalada halkan suuqa khudaarta iyo hilibka lagu iibiyaad meel ka furanaysaa halkaasaad markaa ku iibinaysaa dadkoo dhan baa ku baranaya nin caamad wadanka ka noqonaysaa oo kalluunka lagu yaqaano hebel kalluun laba lagu odhan markaas hebelkii kalluunka iibin jiray markaasuu yidhi kadibna dhowr sano sidaa u shaqee haye lacagta ururi baanka dhig kadibna laashkan dheereeya ee badweynta u dhaadhaca ayaad iibsanaysaa fadeed annagu xageega fadeed baan idhahnaa Djibouti fadeed kaabaad iibsanaysaa baddaad ku dhaadhacaysaa dadna waxaad soo qabanaysaa dhowr kun xabadood baad soo qabanaysaa maalintii iyo waliba khayraad badan oo badda ku jira markaasuu yidhi kadibna gobolada wadanka oo dhan baad ka furanaysaa markaa branch meelo maaragtaane aad ku iibisad kalluunka wadanka dhanba kalluunka adiga siinaya markaasuu yidhi kadibna muddo sidaa u shaqee haddana 5 sano 6 sano lacagta ururi waxaad iibsanaysaa marka dambe warshadii saaradiinka samaynaysay markaasuu yidhi kadibna warshadaasi markaa way shaqaynaysaa adduunkaad u kala daraysaa markaasuu yidhi kadibna qasri weyn oo villayaad dhisanoo si fiican baad u seexan bay ka yidhahdeen wuxuu yidhi hadda markaad ii timaadeen baad hurdayga kicisayna buu yidhi wuxuu yidhi ma hurdo un baan intaa u maraa buu yidhi sownigii hurday maa imikadan waxaan ka wadaa macna isku aragti ma nihin noloshan daahirka maaha nolosha muslimku ابن تيمية رحمه الله يا يري إن لله جنة في الدنيا الدنيا دشيد إلى هاي جنة كلها هاي نيك جنة الدنيا آنن قلنا جنة آخر ما قلبوا جنة الدنيا ومحي وحياة الإيمان والأعمال إنه قفك النقضة قف قلبي يس إلى هاي مرول بأكوها يحسك إلى هاي وقدرك آمن سن راحوا ما هنولش الظاهر كوكوها جاكت tan maanta adduunyada dadku masiibo u yaqaanana masiibo ma adduunyada masaa'ib way jirtaa laakiin masaa'ibta aakhirada masiibada adduunyada jirta
masiibada ugu weyn waa dhimashada bal wax ka weyn shay masiibo way jirtaa adduunyada masaa'ibtu way badan tahay abaartu waa masiibo bugtaantu waa masiibo ilmahaaga oo ka dhintay waa masiibo islaantu oo ka xanuunsata waa masiibo ganacsiga tijaaradii oo ka baabada waa masiibo hatta ardayga jaamacadaha dhiganay hadduu imtixaanka waayo masiibo u arkaa laakiin masaa'ibta adduunyada inagu helaysa masiibada ugu weyn waxa weeyaan waa geeri weeyaan waa adduunka markay noqoto laakiin aakhire markii la joogo masaa'ibta aakhirada jirta masiibada ugu yar waxay noqon doontaa dhimashada ahla naarka walciyaadu billaah markay naarta ay galaan qur-aanka ilaahay noogu sheegay wanaadow yaa maaliku liyaqdi calayna rabbuk qaala inakum maakithuun 40 sannadood ayay ahla naarku naarta ka dhex dhawaaqayaan ay leeyihiin yaa maalik waa malaga furaha naaraha haya bay ku leeyihiin rabbigaa waxaad noo weydiisaa inuu nafta naga jaro bas haska dhimanaba maxay dhimasho u tamaninayaan bal ii sheeg dhibaatada ku haysata ee kale ayaa ka weyn dhimashada marka adduunyada markii la joogo masaa'ibtan adduunyada maan dadku ay masiibo moodayaan ta ugu weyn waa dhimashada weeyaan aakhire markii la tagana masaa'ibta aakhire masiibada ugu yar waxay noqon doontaa waa dhimashada weeyaan saadarteed adduunyadu way nagu weynaan agteena waxa la rabaa inay nala weynaato diinta islaamka muslim aakhiradu waa inay nagu weynaato waa la dhimanayaa dhimashada waxa ka dambeeya ha kula weynaadaan qabri baa ku sugaya qiyaama ku sugaya janniya naar baa dambaysa ilaahay baa lagu hor joojin doonaa noloshaadii adduunyada 100kii sane lagu siiyey 60kii sane adduunyada lagugu deeqay 50kii sane adduunyada lagu siiyey waxaad ku soo qabatay baa lagu weydiin doonaa daqiiqad baa lagu weydiin doonaa Ataa as-Sulaymi rahimahullah ayaa nin taabici abu haayo aad u murug badan salafu saalix waxa lagu yiri yaa sheekh murugtaadani aad bay u murug waad murug badan tahay dadka maxaad dheer tahay baa lagu yiri waa ninka leeyahay 30 sano isagoo qoslayna lama arag 30 sanana samada ma eegin baa la yiri dhulka muusada u eegay u soconayay ninka meel u cadahay meel ka madow dadkaasi aakhirada ku weyneediyaka markaasuu ku yiri al-mawtu fi 'unuqi والقيامة موقفي والموت في عنقي والقبر بيتي والقيامة موقفي وعلى الصراط طريقي ولا أدري وربي لا أدري ما يصنع بي وربي لا أدري ما يصنع بي وحيدي محان نمرغونين محان لم مرغونين بويدي غيري با قورتا يسوران قبرنا وأقل كيغي قيامها واللي جوجين دونا أفرتن كن أو سنبري ابن عباس وفي يوم كان مقداره 50,000 سنة أفرتن كن أو سنة ابن عباس أيا الجوجي دونا بنك قيامة طبعا كن أو سنة الحساب تقول دماني دونت بل ساعد هلك جوكسو مالين ما جوجي كرنا مال أفرتن كن أو سنة أيا سيدا الله تاقنا ابن عباس ومفسر في القرآن وح كهري وح عددك وح كليلك كهرين يا مجرو meel la fadhiisanayaa ma leh meel biyo laga cabayaa ma leh geel la harsanayaa ma leh yawma yafiru almar'u min akhiihi wa ummihi wa abiihi wa saahibatihi wa baniihi likulli imri'in minhum yawmaydin sha'nun yughniihi waliba waa maalin baa ilaahay waa maalin habeen lama sheegin yawma yanzuru almar'u ma qaddamat yadaah yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم يعض الظالم على يديه يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية ذلك يوم التغابن قرآن قال له شيء ويوم ومالين كليا حبين ملا مالين تاس ومالين مالين تاس هاي سوق يسبودي جد كسرنا وطريق عن ظلم رايي ربي جاي مركل اللي هرجو جين وحكى له كل ما قال نبودي